haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah, fiidiyogan ku daran yahay, fadlan ha fiirsan. Sheekadan aan hadda ka sheekeynayno waxay leedahay part 1, qaybtani waa part 2. Haddii aadan fiirsan part 1ka, linkii kor ku xusan fadlan ka fiirso. Stones qaybta sare ayuu shanqar ka maqlay sida qof soconaya oo kale. Stones isla markiiba wuxuu ku fikiray inuu waco booliiska. Nasiib xumo anteen ma lahayn guriga uu ku jiro. Kadib wuxuu go'aansaday inuu kor fuulo, qofka meesha joogana soo fiiriyo. Kor markuu soo fuulay, dhankiisa bidix waxaa jiray albaabo wada qufulan, dhankiisa midigna albaabo iska caadi ah. Wuxuu go'aansaday mid inuu furo albaabada. Stones albaab kasta uu furo, qofna kuma arkin, eber ayuu ahaa. Laakiin albaabkii ugu dambeeyay markuu fulay, wuxuu arkay xidig dhulka ku sawiran, shanta dhinacne shumacyo ka yaalaan. Isla markiiba wuxuu soo xasuustay katiinada xidigta ahayd oo dhiig lagu daraayay. Kadib Stones wuxuu arkay mara kaligeed iska taagan. Waxay u ekeed maradaas inuu qof ku dhex jiro, laakiin dhulka maysan ku taagnayn. Kadib Stones mobilkiisa ayaa dhulka ugu dhacay, maradii sii jeeday ayaa soo jeestay. Stones naxdintii ugu weyneed oo arko waxay noqotay qofka ku dhex jira marada wuxuu ahaa qofkii dhiigga siinayay kalaabkani joogay. Stones markuu ninkaas arkay aad iyo aad ayuu u baqay. Kadib marka dambe waxaa isfurayay albaabadii lixda ahaayeen oo hore u soo arkay. Albaab kastana waxaa ka soo baxay dadkii uu ka arkayay kalaabka qof ka mid ah. Kadib dhammaantooda iyagoo wada dhool cadeynaya ayuu aragay. Kadibna Stones meeshii ayuu ku sooxay. Stones wuxuu soo naxay asigoo jiifo isbitaal, kalkaalisana hortaagan tahay. Kadib Stones kalkaalisadii ayuu wuxuu weydiiyey qofka halkan keenay iyo wixii ku dhacay. Stones waxaa loo sheegay inay halkan keeneen group dhalinyaro ah. Groupkaas dhalinyarada waxay ku arkeen Stones asigoo kaligiis u socdo meel cidla ah ama guri oo duqoobay. Kadib way raaceen groupkii dhalinyarada ahaa, laakiin albaabkii uu furmi waayay. Kadib waxay waceen booliiska. Booliiska markay imaadeen waxaa la arkay adigoo meesha taalid. Kalkaalisadina sidaas ayay ugu sheegtay. Kadib booliiska ayaa waxay weydiiyeen waxa asigoo ku dhacay. Booliiska arrinkii ku dhacay dhammaan wuu soo wada sheegay, laakiin booliiskii way aamini waayeen, waxayna ka dhigteen hadalkiisa kaftan. Kadib Stones gurigiisa ayuu iska imaaday, wuuna iska jiiftay. Laakiin wuxuu dareemay in dhabarka aad looga haayo, aadna u cuncunayo. Sidoo kalena wuxuu arkay in afkiisa uu dhiig ka imaanayo. Kadib wuxuu imaaday musqusha si uu u quweysto. Kadibna dhabarkii ayaa aad u xanuunay. Miyaaradda ayuu go'aansaday inuu isku fiiriyo wixii dhabarka ugu dhacay. Kadib miyaaradda hor imaaday wuxuuna fiiriyay dhabarkiisa. Wuxuu arkay calaamadii xidigta ahayd inay ku sawiran tahay dhabarkiisa. Waxay u ekeed in dhabarkiisa lagu calaameeyay mindi ama wax mudac ah. Stones maalinkaas wixii ka dambeeyay wuxuu go'aansaday inuusan aadin wax kalaab ah. Hana hilmaamay inaad fiidiyoga like gareyso. 내가 포기하고 싶을 땐